munaasabad lagu maamuusayay diiwaangelinta cashuur bixiyayaasha nambarka aqoonsiga ee cashuur bixiyayaasha ee gobolkan Awdal ayaa lagu qabtay hotel Sow ee magaalada Boorama waxaana kulankaasi soo qaban qabisay wasaaradda maaliyadda qaybteeda cashuuraha bariga ee gobolka Awdal waxaana ugu horeyntii halkaas ka hadlay maamulaha cashuuraha bariga ee gobolka Awdal Cabdilaahi Aadan Nuur waxaana uu faahfaahiyay ujeedada kulankaasi waxa nasiib ah oo farxadii aniga maamul cashuur bari ahaan in aynu noqono gobolkii labaad ee laga daafuro barnaamijkan cashuurta barnaamijkan oo ka kooban dhinacyo badan danna u ah bahda ganacsatada iyo wasaaradda horumarinta maaliyadda ganacsatada waxaan u soo jeedin lahaa ka codsanayaa inay kala qayb qaataan shaqaalaha diiwaangelinta una fududeeyaan hawsha iyada ayaan kula dardaarmayaan ku yar adkeynaya faa'iido badan oo tayo haday noqoto iminka markuu wax la soo dogayo dekadii la soo dogayo markan laantii lama sameyn doono sidoo kale waxa iyaguna halkaas hadalka iska daba qaatay salaadiin kala duwan waxana hadaladoodii kamid ahaa murtiimaka waa faanay waxay tahay gobolkii labaad ee laga furay weeyaan koladii la yiri horta aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa inaguna waxa weeye kuwii ay faa'iido u yeelato Allah inaga dhigo kuwii ummadda uga faa'iideeyana Allah inaga dhigo runtii hadal badan ma jiro waxaan leenahay waxa alla wixii aad waajisan hambaliyo sida dawladu sheegay baayac mushtariga iyo qolada hadeerado maaliyadda oo bay arintu ka dhaxaysaa inta yada kala waa marxaati wajooga sidoo kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay ganacsatada gobolka Awdal oo magacooda uu ku hadlayay mudane Riiraash waxana uu soo dhaweeyay kulankaasi iyo qaabka cashuur bixiyayaasha loola dhaqmayo runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa registrationka ay sameeyeen ee halkan maanta lagu daahfurayo waana sharaf u soo hoyatay gobolka Awdal maareeyaha shirkadda biyaha ee Boorama Aadan Maxamuud Hoori Curaate ayaa isaguna waxa uu ka dhawaajiyay annagu haddii aan nahay shirkadda Shaaba cashuuraha nagu waajibay dhammaan sidooda ayaan u bixinaa cashuurtana in la bixiyo waayo cashuur la'aan waa horumar la'aan sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland Professor Cabdilaahi Ibrahim Habane waxana uu tilmaamay weeyaan duwalka hore u maray iyo kuwa soo korayaaba horta cashuur laga maarmo magaalada Boorama waxay ku taabagelaysaa hadba dakhligeedu intuu noqdo oo ay cududeedu ku muujin kartaa sidoo kale waxa ugu dambeyntii hadalka iska daba qaatay maayirka degmada Boorama Salebaan Xasan Xadii barasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali waxana hadaladoodii kamid ahaa waajibaadka saaran ganacsatada waa la garanayaa cashuur bixiyaha waa inuu cashuurtii ku waajibtay sidii ugu haboonayd u bixiyo register au noqdo imkaaniyaad kasta oo wasaaradda ama laamaha dawladda ee cashuurta qaada ka khuseeya inuu facilitationkeeda sameeyo waa arrin wanaagsan in wax la isku ogaado maanta arrinka halka lagu daafurayaana nasiib baynu yeelanay gobol ahaan iyo degmada gaar ahaan degmada Boorame ama magaalada madaxda gobolka Awdal waan soo dhaweynaynaa waan kula shaqeynaynaa ganacsatadan kula shaqeynaynaa wasaaraddan kula shaqeynaynaa diyaar baanu nahay waxa kulanka soo gabagabeeyay Khadar Maxamuud Maxamed oo lagu magacaabo Khadar Laas oo ah agaasime ku xigeenka cashuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda ee heer qaran waxana uu sharaxaad ka bixiyay kulankan waxaan horta iminka meesha aanu idin keenay nambarkii ganacsiga weeye waa nambarkii qofka u gaarka noqonayay Soomaaliland oo dhan nambarka qaadanaysa waxaanu eegnay oo aanu xageenu ka bilowna wasaaraddeedu waanu shirnay halkeenu ka bilowna waan rogrognay awdal baanu ilaano ka bilowno imika waxaanu bixinay aqoonsiga laftigiisa ganacsatadii intii ugu horeysay baan nambaradaas siinay dhammaantiin waa wada leedin qof walba waa leeyahay aroortu xafiiska ka qaadanaya nambarka cashuur bixiyaha ee deegaanada kala duwan ee gobolkan Awdal oo ay Somaliland kala mid noqonayaan waa caafi TV-ga qaranka Somaliland Boorama